English dialogue wada sheekeysi Ingiriisi ah. Waxa halkaan ku sheekeysanayo Caasho and Ahmed oo Caasho raadinayay Caasho sirx u soo gashay markaas ayuu ku dhahay I'm very sorry sister abaayo aniga aad baan uga xumahay I am very sorry sister abaayo aniga aad baan uga xumahay You are not engaged to a man adiga nin uma alkunid nin uma doonid soo sidaas darteeda I love you deeply waxaan si qoto dheer aan ku jeclaa and sincerely iyo si daacadnimo aan ku jeclaa Your love jecelkaagii silenced me wuxuu igu aamusiyey with sharp arrows falaara mudac ah I never eat wax ma cuno not drink waxna ma cabo anything I never eat and not drink anything waxna ma cuno waxna ma cabo whenever goor waliba I call an anigu wacayo someone qof aan wacayo I can avoid kama tagi karo saying inaan dhaho your name magacaaga hebelay inaan dhaho kama tagayo soo sidaas darteeda don't let me die and dhimanin hayga dhimanin but laakiin survive me badbaadi otherwise haddii kale I will go to waxaan aniga ahaan doonaa aan aadi doonaa to the grave qabriga and all the says oraha oo dhahaysa forced love jacayl qasab ah and find it fire iyo dab aan la babinin never do well wax ma qabtaan Wow, gabadhii baa soo hadashay waxay dhahday what a crazy man are you alla maxaanin waan qaatay it makes me no difference at all wax ma iga bedelaysa aniga and all the says oraha oo dhahaysa Hambi Bakis man knows how to sleep nin tuur qabo asaga yaqaano siduu u seexan lahaa ama dhimo ama iska dhaaf adeeg ku taala wow gabadhii iska raasooy